dadka beeralayda ah ee ku nool deegaano hoostaga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo markii labaad ay ka qaadeen dalagyadii sanadkan ka soo go'ayay fatahaada webiga Shabeelle oo ka geysay deegaanadaasi ayaa ka cabanaya in dhibaatooyin kala duwan ay soo food saartay oo ka dhalatay fatahaadaha kala duwan ee isdabay jooga ee halkaasi saameeyay waxayna sheegeen in dalagyadii sanadkii hore ka soo go'i lahaa iyo sanadkanba aysan goran isla markaana ay haysato duruufo adag ee dhinaca nolosha ah taasi oo u dheertahay macluul iyo gaajo iyo cudurro kala duwan oo ka dhashay fatahaadan ayaa waxaa ka dhashay macluul iyo cudurro kala duwan korcuncun iyo malaria tifo iyo cudurro kale aad u fara badan waxayna dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhammaan ganacsatada waxay ka codsanayaan inay la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo. Abo Cali Geedow oo kamid ah dadka beeralayda ee ku nool gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo fatahaadan ay saameysay ayaa ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ganacsataduba inay la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo. degmada Wallaweyn dhibaatada biyaha oo garabdhaay luluto balcad muulashiiqaan cali dheera ilaa ku garab buulo degmeerey oo fasaadka aad iyo aad kuwii hor iyo kuwii dambe beera maanta fasalna laga helin oo halaag lagu jiro haddaan barakac la soo yahay oo lagu sugan yahay cid waxa uu qabatin had weli ay jiran bacyo waaba soo gaareen biyaha kuwa dambe fasaad u xoog badan waa markaan fartaada migi imaad degmeerey نايشو بالبربر ماشي أجيب جي ما دقني أنا وقش باري مع البولا كسي فيدو وقال لا يحضر وفين قط سفيان بيا فساد حقنا ودنك كوهايا هذا هدي الوقت بيا نبقى ساكجرة دكتور دلها صبرك هاي جرفالة ماشي دهان أو برك أروح سماه صبرك عن بناكو هاي شيريان يوحي هاي فجان واربع يوها بربركو سوق جاري كوارها وبرك عن fatahaado kala duwan ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay ay saameyn xoogan ku yeelanayeen dadka beeralayda ah iyo bulshada ku nool deegaano hoostaga degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayagoo dalagii sanadkii hore ka soo go'i lahaa ay ka qaadeen biyaha isla markaana ay ka baabi'iyeen bakaarihii ay ku keesanayeen dalagii sanadka ay ku keesanayeen badarka waxayna guud ahaan ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan ee ka dhashay fatahaadaha kala duwan ee halkaasi saameeyay. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.